kobcinta dhaqaaluhu wuxuu ka mid yahay barnaamijka hay'adda fulinta ee dowladda federaalka Soomaaliya inkastoo adduunyadu nagu tilmaanto inaan ka mid nahay dalalka ugu saboolsan dunida haddana waxaan haysanaa wax walba oo dal uu uga bixi karo fakhriga haddana annagoo og in dalkeennu ilaahay ku manaystay khayraad aad iyo aad u fara badan oo noocyo badan oo ay ka mid yihiin xoolaha beeraha kalluunka shiidaalka iyo macdanta dhulka hoostiisa ku jirta waxaa dawladdu dadaal u gashay sidii dhaqaalaha loo kobcin lahaa loogana bixi lahaa caqabadaha dhaqaale ee saameeyay nolosha dadka Soomaaliyeed talaabooyinka dhaqaale kobcinta la xiriira ee hay'adda fulinta juhdiga badan gelisay waxaa shaqo abuur loo sameeyay dhalinyaro badan oo gaaraysa dhowr kun oo qof iyadoo qaar kalena insha Allah dula yiraahdo dhawaan aan rajeynayno inaan shaqo abuur iyo xirfado shaqo aan u sameeyno waxaan hagaajinay nidaamka hufnaanta maaliyadda oo fursad noo siisay in Soomaaliya la aamino mar kale oo dib loogu xiro hay'adaha dhaqaalaha adduunka oo aan macaamil wanaagsan la yeelano